wabarakaatuhu daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hal abuurka iyo heesaha ee Hiil Media taasoo toddobaad walbaba halkan ama habeen walbaba aad ka daawan doontaan channelka Hiil Media toddobaadkan waxaa barnaamijka markaasi marti noogu ah oo halkan aanu ka weydiin doonaa su'aalo dhowr ah hal abuur da'yar oo markaasi aan barnaamijkan ku soo martiqaadnay sidaan aynu qancino daawadayaashana ku xiran dabcan channelka Hiil Media waxa halkan igula sugan Maxamed Saciid Yare waa hal abuur markaasi da'yar oo dabcan gabayaal iyo markaasi suugaan badan ka curiyay intuu markaasi uu abwaan ka ah ayaan rabaa markaa inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka hal abuurka iyo heesaha Maxamed ku soo dhawow barnaamijka hal abuurka iyo heesaha ee Hiil Media maxamed aad baad u mahadsantahay waa ku dhawahay barnaamijka hal abuurka iyo heesaha Hiil Media iyo adigoo Soomaaliya waa idin mahad celinaya dhamaantiina aad iyo aad baan ugu barnaamijka intaan ugu gudgelin ayaa rabaa inaan markaasi wax ka ogaado ama daawadayaashana ay wax ka ogaadaan bal taariikh halkaad ku soo barbaartay magacayga horta marka ugu horeysa hadda magacayga saddexan dhamaan intay bulshadu u yaqaaniin Maxamed Saciid Barqadle ku magac dheer Maxamed Dare dadka qaar yaqaaniin dadka qaarna injineer Barqad bay yaqaaniin waxa ku dhashay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug kuna soo barbaaray waxbarashada ilaa heerka dugsiga sare aan ku soo gaaray ilaa haddana halka kan wax ka bartaa magaalada Gaalkacyo waa inuu ku suganahay magacan inasta muxuu kugu baxay magacan inasta bulshadu way iska badan tahay haba waxaad la kulmaysaa bulshooyin kala duwan haba neenaas way kula baxay laakiin hadda neenaasta ugu caansan dadka badan ay yaqaaniin waa Maxamed Dare hadda hal abuuraha ayaa tahay oo dabcan gabayaal badan aad curisay ayaa jira goormay ku dhalatay ama aad aragtay inaad hal abuur tahay ama aad xurin ka dhid aad iyo aad hal abuurka maqlaysid inta badan dadka abooyin wuxuu hiba ayuu siiyaa waana mid hiba la ku siiyo hal abuurku anoo 12 sano jira bay ugu horeysay gaba ay tiriyo dabcan 12 sano marka jiray af Soomaaliga saas uma qori jirin laakiin waan tirin jiro de waxyaabo badan baa ka hal abuuray hadda maantadan la joogo ilaa waqtigaasna waa soo waday inkastana bandhigyo badan aan sameeynin oo maaragtay qofka hal abuurka leeyahay badanaa kuma dhiirado waayo meeshan kuma badna Soomaaliya sida fanki Soomaaliya oo kale lagu soo bandhigi jiray hal abuurada da'da yar oo kale ay sajirin masraxyada waaweynaa iyo hobaladii waayahay dabcan hal abuur da'yar tahay bal gabiga kugu horeeyay ama wixii kugu horeeyay aad curiso muxuu ahaa dabcan waxyaabihii ugu horeeyay aniga laftigaygu hadda maxaa la jiray aad bay u badan yihiin oo ma yaraan laakiin waxyaabihii maadaama waxyaabaha hore ahaayeen laakiin kuwii ugu dambeeyay ka hadlo ama soo bandhigo ay ahaayeen jaamacadda GU toddobaadka dhaqanka jaamacadda GU oo hadda ka hor lagu qabtay sanadkan 2019 jaamacadda GU magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug aan ka tiriyay dhowr maanso oo runtii taabanaya Soomaali badanna taabtay kulliba horena u maqleen haddana jecelahay in aan u mariyo Hiil Media la yiraahdo ama maanso qoranaa oo la yiraahdo walkii qabyaaladiid waan qabyaalada uga hadlaya iyo qaran la'aanta baa ugu horeysay dabcan midii ugu dambeysay raahday aan ka sameeyo ayuuna maansooyin dhowr uga jireen maansadan qabyaaladiid waxay oranaysaa qadar ee baweeye waxaan eebahay qorini waa qarax qabyaalada haddaan la iska qabanayni qubanaha dagaalkii dibkaan qaadi kari weynay qabowlaha qoryaha qaatay geesi loo qoray mid qasaare soo hoynaya talada guud qaatay qoloqolo dirirkan dhamaan qariye buur dhaafay qalmi dhabadka reer qaaflaba qaranka noo diiday waa qarax qabyaalada haddaan la iska qabanayni qoran iyo qabyaaladii waxay maanta qabanayso kala qaaday Soomaali qora oo is qaban weyday kuwii talada noo qaadi jiray qoorta laga gooyay barmageedada aan la qaban seefta la qaadiyay qonyartii haweenkii la qalay oo la qowracay waa qarax qabyaalada haddaan la iska qabanayn qayrkeena waxa nagala haray qaran la'aan weeye
isqardoofnay Soomaaliya qaran la'aan weeye qodsumo oo la qodan waayey qar kastoo la eegaba qeyr ka wada yaala inaan qacan shisheeyana ka suga qaran la'aan weeye qaansada qabyaaladu wada haddaan qoorta laga goynin qarannimada Soomaaliyeed oon la wada qaadan Soomaalida qasaara u dambeyn qoon qabyaalada waxay ku tusinaysaa masadani anagoo sii socon doono qabyaalada dhibaatada ay leedahay iyo qaran la'aanta waxaan haddana xusi doonaa geesiyadii ama isku dayi doonaa inaan wax ka tilmaamo qarniyadii dhamaadii qoomka lagu aasay waxa qaaday oo qoorta jaray waa qabyaalada qurgooyada dhacaysii dhibkan qolana loo iilan inkastoo qasaaraha dhaca qoomka lagu fiirin wax qasaare geysanaya waa qabyaalada waa qarax qabyaalada haddaan la iska qabanaynin Soomaali oo qura oo Afrika u qidmaynaysa qarannimo astaano qabiilka daahir amaanka qabanaysa dabcan gabay qiiro badan oo daawadayaashu laftigooda ay la dhici doonaan uu yahay marka aad gabaygaas aad tirisay maxaa dareentay runtii waxa dareemay inay tahay qabyaaladu midda dadka kala qaybinaysa midda Soomaali kala geysay Soomaali oo shan oo midaysan ay maanta midba meel ku tuurtay oo dadkuna ay garan waayeen inay ka soo kabsadaan ama ay ka soo laabtaan qabyaalada dhibaatada ay leedahay iyo seefta xun ay Soomaali ku dhufatay haatan ay la kala maqan tahay waxa rajeenaya in Eebaweyne uu taasi ka bogsiyo oo ay dabcan Soomaalidu dib uga soo kabsadaan taasi ayna ka tanaasulaan kugu dhiirigeliyay inaad markaasi aad wax abuurto markasta hamiyadu ku siinayay dhiirigelin kula garab taagnaa intaan oo gabayaala intaan oo markaasi aad uga hadlayso dalkii iyo markaasi waxa ka jira waxaan arkaysid hal abuur weeye abada dabcan gabayaanimada dad badan kama soo gaarin laakiin badanaaba aabahay Siciid Barqale Allah khayr badan siiya ayaa in badan awgeed waxa garaadsaday ama ku dhiiriday ina waxyaabo badan ee Soomaalida taabanaya aad tiriyo sida gabayada iyo maansooyin ugu gudbinaya fariimaha ka aaminsanahay wadanka kuwa lagu horumarin karo kuwa xumaanta looga leexan karo intaba yahay dabcan gabaygaas marka laga soo tago aad ku tilmaamaysid sida maanta Soomaalida ay tahay iyo qabyaalada heerka ay taagan tahay iyo rajada aad waxa rabtid inay Soomaaliya ay noqoto dhankii jacaylka maxaad ka tirisay jacaylka